السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaalkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay gabadh yar oo 20 jir ah oo ku noqotay guri wasiir leeyahay adeegto ama jaariyad kadibna wax la yaab leh ku aragtay gabadhii uu wasiirku dhalay dhacdo la yaab leh. qisadan intaanan gudagalin haddaad nagu cusubtaa subscribe saar channelkan oo nagu soo bir haddaad hore noola joogtayna like noo dhiirigeli sida muuqaaladan oo kale aanu soo badino kadibna uu dad badan u gaadho kadibna ay dad badan uga faa'iidaan ku soo dhow. gabadh 20 jir ayay ahayd, yaraanteeda aqoon badan lama soo barin, taasina waxay u horseeday adeegto ama jaariyad inay ka noqoto guri wasiir leeyahay. muddo guulaha jooda waxaan dareemayay inanta curdinka ee wasiirku dhalay in ay goor iyo ayaanba dhigta telefoon ku hayso habeenkii dadku marka ay seexdaan, iyadu haasawe iyo oohin ayay ku qaadan jirtay habeenkeeda oo dhanba. markii habeenkan sidaa u dhammaystay waxba su'aala subaxnimadii markuu waaga baryay ma weydin, balse isla habeen labaad ayay dhex martay iyadu iyo ninkay la hadlaysay iyadoo ooyeysa. haddaba waxaa ii suura gashay ninkay la hadlaysay iyo lambarkiisa inaan soo ogaado. waana nin xaaslaha oo hantiilaha oo ka mid ah ragga baararka ka ciyaara. cadhaygii qabatay inan taayir siduu wax ugu geysanayay iyo siduu ugu cadal jurleynayo habeen dheeli ee ka seexan kari weeday jiif iyo joodba u diiday. waxaa iga yaabiyey xidhiirka labadan qof ka dhexeeya ee inantayra dhashaantida kusoo hoos noqonaya u cadal jurleynaya. waxaan u cabsaday inay sida awgay isu disho oo qudhaysa jarto. maalmaha ka mid ah iyadoo telefoonka dhigta ku haysa ayaan la hadlay, ayaan wax weydiiyey. kolkii intay cadhoortay ayay igu qaylisay iyadoo ku xum lahaditaankaan la hadlay intay la hadlaysay ninkaas. kadib markaan ka baxay isla maalintaas intii aan sii socday waxaan maqlay iyadoo gacaliyey ninkay la hadlaysay ee sidaasoo dhan u xumeynaya ugu ooyeysay. adeegtadeydii xumeed ayay ahayd ila raalle oo gacaliya. waxaan bixi jiray anigoo dulli iyo liidasho badan dareemaya. waxaan dareemi jiray nolol aadame ahba inaanan ku nooleen. kolkay sidaa tahayba fikrad ayaa igu soo dhacday isla maalintaas ee hadallada aan ka cadhooday igu tiri. fikradaas oo ahayd inaan gacaliyaha ninkay la hadlayso gacaliyaheeda ay la hadlayso lambarkiisa aan soo qoro. kadib wuu ii suura gashay lambarkiina aan soo qoro. habeenada ka mid ah ayaan wacay, waxaana isu yeelay gabadh hantiilaha codkeediiyo kale. waxaan u sheegay inay gabadh hantiilaha ahay aana ka soo jeedo dabaqadaha sare. waxaana ku yidhi waxaan ahay gabadh aad garanayn oo aad ku jecel baarka macaasha ka tahayna maalin walba u timaada sidii adiga keliya aan ku arki lahaa. judhiiba codkiisiiyo malabka intuu beddelaa ayuu ugu yidhi soo dhowow dayaxlamoodiyey, waan ku garanayaa. waxa aad tahay quruxley kadinka dhinaciisa istaag ee habeen walba koobka khamriga dalbata. waxayna ku tiri maay ma sidaasoo dhan ayaan kula fool xumaaday. aniga weligay imaadan arkin bay ku tiri. weligay imaadan arkin indhaana imaad saarin ayuu yidhi. haddii ay sidaa tahayba waa lagama maarmaan in aan ku arko. dhowr jeeroo dambe ayaan wada hadalnay, waana wada hadli jiray. mar kasta wuxuu igu soo celin jiray tiri inaan la kulmo. maalmaha ka mid ah ayuu igu codsaday inaan la kulmo. mar kasta waan ka diidi jiray. waxaana cudurdaar ka dhigtay oo aan u sheegay inuu aabbahay yahay nin adag oo cadhadu ay madax martay oo uu maalin ku dhufta xabad nin beeroolaa keliyata inuu ishayla raaciyay. marka aabbahaynu nin adag yahay aanan marnaba aan la kulmi karin baan u sheegay. intaa wixii kasii dambeeyey bay tiri wadahadalkeeda wuxuu isu bedelay. markasta wuxuu u codsadaa inaan arko. waxaan soo xasuusiyaa bay tiri aabbahaydii cadhada adkaa iyo madaxa adkaa ee ninka beeroolaha dilay. haddaba kolkii ay 2 bilood sidaan ku wadnay maalmaha ka mid ah ayuu hadalladiigu socday. anna maalmaha ka mid ah waxaan isugu dayay inaan ninka muuqaalkiisa iyo wejigiisa oo dhammaystiran aan si toosa u arag. 2 bilood oo dhib iyo kadeed ah muddadaas ayaan kula kulmay inaan arko wejigiisa. kafayga group waxaan u sheegay in 6 oo goob ah soo geli doono kafayga anigoo xidhan dhar cawlan. okay buu yidhi waan iskugu imanaa. maalinka iyadoo ku beedan 6 goob ah ayaan soo galay kafayga anigoo xidhan dhar guduudan. kolkaas ayaan arkay isagoo kursi ku fadhiya. haddaba ninkaas xaragada ka muuqata markaan arkay
xaragga ka muuqata oo gabadh kastoo soo galaba oo aniga mooday oo kaninka albaabka marba sida uu eegayo isha la raacay. markii aan arkay xaragadiisa iyo doonistiisa waxaan ku adkaystay go'aankaygu noqday inaan dib uga noqdo oo kadib aan waco markuu guriga yimaado. waan ka tegay isagoo halkii fadhiya. guriga markii aan ku laabtay ayaan wacay aniga ooyaya aan cudurdaar u keenay, kadibna cudurdaar ka dhigtay inuu odayga aabahayna soo booqday booqasho nagu soo gaadhay. kadibna ay noqotay gurigii inaan ku soo dhaweyno aan halkaas aabahay waqti la qaado. 2 bilood oo kale ayaan kadeed iyo baroor ugu dhameeyay. kadib haddana mar kale ayuu iga codsaday inaan wada kulanno. haddana sidiisa leed ayaan ku samay. ujeedkayna wuxuu ahaa inaan ka jaro gabadha yar ee uu dhalay wasiirku sida uu galay inaan u galonba wahayd ujeedkay. kolkii aan arko gabadha yar ee wasiirku dhalay ee telefoonka ninkii kula hadlaysa, ninkaan sida u galay ninkii barooranaya, kolkaan qolkeeda aan soo galo way igu qaylin jirtay. markay dibadda aan uga baxo aan arko ninkani la hadlaysa. mar dambe waxaan garwaaqsaday inuu ninkanu inantan yar uu hanjabayo oo telefoonkeedana ugu soo diray. haddaad si dhaqsa lacagta ugu soo diri weydo lacagtaan kaa codsanayo waan faafinaya muuqaalada. waan fahmi waayay muuqaaladii waxay yihiin, balse mar dambe waxaan garwaaqsaday inuu muuqaalo u ka hayay ee tahay. weli sidii waan ku wadaa ee ninkii bannaanka marba inaan ku jiidan doonayaa Qaahira. haddaba qisadaas waxaan ka qaadan karnaa cibro qaadashaa. horta qisadaas halkaasay kusoo gabagabowday cibro qaadashada ee mudan in hablo ka titoonaadaan raggan ee muuqaaladooda iyo fiidiyoyadooda u dirayaan aanay garanaynba ay ka titoonaadaan inay iska ilaaliyaan. waxaa jira rag hablaha ugu cadajuleeya haddee lacagtaas muuqaal yar oo ka hayaan ugu cadajuleeya. dad waxaa ii samayn weyday waxaan kaa doonayo muuqaalka ay bannaanka dhigaya jood imikaba ka adkow sawiradaada iyo fiidiyoyadaada inaadad cidna qofaad ku kalsoon tahay maahaana qof kaloo aad shalaad barateen sawiro dirtee hadhownadi sidaas inataa loo galay oohin iyo baroor ku qaado waqtiga. haddaba haddaad muuqaalkan waxaad ka faa'iiday iyo cibro qaadashada aad ka faa'iiday intaad sidaa u soo duubtay sida waraaqda kommentida nagu reeb waxaad ka faa'iiday. haddaad channelka ku cusubtayna subscribe saar, haddii hore noola joogtayna like nagu dhiirigeli. ballanteena waxa weeyaa muuqaalka xiga iyo wax cusub. wassalaamu calaykum.